بسم الله الرحمن الرحيم. مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية قدوميها قولها شعبك وسير كعجينك وسيارة دقاشان دقا قدهان قولها وسير هذا هل كان فرديا رئيس هوري جمهورية فدرالك الصومالية تلياشا عيد مضى هل كان فرديا kuwa Soomaaliyeed iyo kuwa amisoomba safiirada beesha caalamka ee halkaan nala fadhiya xildhibaanada labada gole jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga taliyaashii hore ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ayagana runtii maanta halkaan nala fadhiya taliyaha kulliyadda Turkisom dhammaan saraakiisha abaanduulayaashii hore ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ayaguna halkaan nala fadhiya dhammaan sareeyaasha saraakiil xigeenka alifleyda iyo dableyda ee meediyaha oo runtii ayagana halkaan nala fadhiya guud ahaan marti sharafta ee qiimaha badan ee xafladan ka soo qayb gashay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dhammaan hadal laguma soo koobi karo runtii hilma hadal kuma jiro taliye xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo taliye xigeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed walaalkay Janaraal Cabbaas Amiin Cali oo runtii aad iyo aad ugu qiimo weyn mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaan kadib mudana madaxweyne mudayaal marooyin waxaa sharaf weyn inoo ah maantay inaad nagala soo qayb gashaan sanad guuradii 62 ee ka soo wareegatay aas-aaskii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo runtii aan ognahay ummadda Soomaaliyeed qiimaha iyo miisaanka ay ugu fadhiso ognahayna labadii sano aan soo dhaafnay in aan la xusin sabab la xiriira cudurka faafaha daran ee coronavirus awgiis maanta ayay inoo suurta gashay waxaa mahad iskale Allah subhanahu wa ta'ala oo ay tahay 12 Abriil 2022 in ay noo suurta gasho inaan isugu nimaado sanad guurada 62 ee ka soo wareegtay aasaaskii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aad iyo aad ayaan runtii idinkaga mahad celinaynaa waqtigiina qiimaha badan iyo ka soo qayb galkiina oo runtii aan dhihi karno waxay noo tahay dhiirigelin waxay noo tahay muxuu ahaa ii sheeg in aan horu dhaqaajino howlihi adkaaya aan ku jirnay mudana madaxweyne markaa intaa uga gudbo haddii aan ku laabto dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed runtii wuxuu soo maray marxalado kala duwan maalinba meel ayuu joogay maantay runtii meel ayuu sii gaaray waxaan rajaynaa insha Allah tacaala iyadana inaan ka sii wadi doono sarana u sii qaadi doono waxaan xoogga saarnay si ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay u noqdaan kuwa xirfadlayaal fahmi kara waajibka iyo mas'uuliyadda hor yaalla gudana kara si habsami leh u guda kara dhammaan hawlaha ay ugu xil saaran yihiin qarankooda ee tababarka noocyadiisa kala duwan ee lagu tayeynayo heerarka kala duwan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sidaas oo kale ayadana waxaan xoogga saarnay qaadashada aqoon-yahano ka soo qalin jabiya jaamacadaha dalka oo isugu jira muxuu ahaa ii sheegay heer jaamacadeed iyo heer dugsi sare oo aan u kala dirnay kulliyadaha kala duwan ee wadamada aan saaxiibadan kuwaas oo runtii kuwa badan oo kamid ah oo wadankooda dib ugu soo laabtay waxbarashadooda si guul ah ku soo dhameystay ay wax weyn ka bedeleen howlaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwa badan oo kale oo wali ku maqanna aan aaminsanahay inay si guul ah ku soo dhamaysan doonaan kana sii dhaqaaji doonaan meesha ay maanta joogaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sidaas oo kale mudan madaxweyne waxaan aydan runtii muddooyinka ugu dambeeyay xoogga saarnay xirfadaynta iyo sare u qaadida aqoonta saraakiil xigeenka alifleyda iyo dableyda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo heerarka kala duwan loo tababarayo waxaan sidaas oo kale aydan madaxweyne runtii aan xoogga saarnay muddooyinkii ugu dambeeyay waxaan ognahay marka laga hadlayo ciidamada muhiim waxa ugu weyn waa taakulaynta sidaas awgeed waxaan runtii xoogga saarnay arrimaha taakulaynta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed hadday noqon lahayd saadka hadday noqon lahayd sancada hadday noqon lahayd gaadiidka hadday noqon lahayd caafimaadka dhammaan meelahaas iyo meelaha kale ayaan runtii xoogga saarnay
waxaad la socotaan runtii asigana in mudaabaciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku socda reform isugu jira noocyo kala duwan hadday noqon laheeday dadkiisa iyo hadday noqon laheeday hantidiisa intaba oo ayagana runtii aan dhihi karno waxa laga gaaray guulaad waaweyn oo runtii aan halkan lagu soo koobi karin waxaad ogtihiin dhammaan xubin kasta ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kamid ah waxay martay personal reform oo dhammaystiran asigoo u daadegay ilaa heer maamul taasna runtii waxaan aaminsanahay in ay aheedo hawl aad iyo aad weyn ay aheedo waddo dheer oo runtii safarkeeda uu dhib badnay laakiin ku soo dhamaatay si farxad iyo guula welina socota oo qaybaha ka dhiman insha Allah taala aan dhammaystiri doono haddii Ilaahay yiraahdo waxaad ogtiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maantay si systematic ah ayuu ku qaataa dhammaan xuquuqaadkiisa waxaan uga mahad celinayaa dhammaan howlahaas ayaga ah in allaale inta nagala qayb qaadatay oo xafiisyada kala duwan ah gaar ahaan waxaan uga mahad celinayaa runtii oo ayagana garab weyn ugu siiyay muxuu ahaa ii sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo guud ahaan madaxda kala duwan ee qaranka waxa halkaan iga muuqda wasiirka maaliyadda runtii oo la'aantii aanay noo qabsoomi lahayn hawsha ayada ah oo aan leeyahay aad iyo aad u mahadsan tahay iyo dhammaan shaqaalihii runtii arrintaas ka shaqaynayay oo aan aaminsanahay inay qayb weyn ka yihiin ee guulaha laga gaaro arrimaha reformka mudana madaxweyne sidaas oo kale inta kaliya kuma eko waxaan ognahay inaan la dagaalamayno ururada argagixiso oo caalami ah oo aan ognahay inay yihiin dhiig miirato daadinaya dhiigga ummadda Soomaaliyeed maalin walbana ku howlan dhagarta iyo qiyaanada ay ku sameynayaan ummadeena iyo qarankeena sidaas awgeed maadaama ay been ku sheegayaan arrimaha diinta islaamka mar walbana ay adeegsanayaan waxaan xoogga saarnaa arrimaha wacyigelinta oo aan ugu talagalnay dhammaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo bulshooyinka intooda kaleba inta aan gaarsiin karno ayadana runtii meel fiican ayaan ka soo gaarnay oo ayagana runtii aan dhihi karo dhammaan idaacadda qaranka iyo idaacadda ciidamada qalabka sida iyo dhammaan meediyaha kale runtii oo arrintaas ayagana siyaabo gaargaar ah noogala shaqayn jiro aan leenahay aad iyo aad u mahadsantihiin welina aan u baahanahay runtii gacantooda in ay gudbiyaan si looga qabto nimanka dhiig miiratada ah qarankeena iyo ummadeena mudanayaal iyo marwooyin dhammaan waxqabadka kor ku xusan la xiriira muxuu ahaa ii sheegay xuska iyo xiriirka guulaha uu gaaray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sidaas oo kale ayadana waxa barbar socday oo aad ogtihiinba la dagaalanka ururada argagixisada oo runtii in muddo ah aan kula jirnay argagixisada dagaal laguna qaaday hawlgallo aad u xoogana oo meelo badan looga xureeyay meelo badan oo xarumo badan ay kula hayeen lagu burburiyay aan rijaynayna insha Allah taala inaan xoojino siina dardar gelino si aanu dabar goyno oo uga saarno ummadeena si hooyooyinka Soomaaliyeed caruurta Soomaaliyeed aabayaasha Soomaaliyeed iyo guud ahaan ummadeenuba ay ugu noolaadaan sharaf barwaaqo iyo nabad waxaan rabaa runtii ayagana inaan halkan ka xuso saaxiibada beesha caalamka oo runtii aan dhihi karno xaqiiqatanka ayagana waxay ka geysteen muxuu ahaa ii sheegay dib u dhiska hay'adaha amniga gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gacan aad iyo aad muhiim u ah oo runtii aan dareemi karno kaalinta ay ku lahaayeen howlihan soo marnay laakiin taana aysan ahayn oo aanay ka turjumayn dhamaystirka waxyaabaha u baahnay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan ognahay wadanka Turkiga saaxiibadeena halkan maanta nala fadhiya oo runtii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybo kala duwan oo aad iyo aad muhiim u ah saraakiil xigeyn leh alif leh iyo dab leh siyaabo kala duwan tababaro u soo siiyay haddana qalabeeyay agabkii ciidanku u baahnaa sidaas oo kale ayagana waxaad la socotaan saaxiibada Mareykanka oo ayagana runtii sidaas oo kale ayagana ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka danab ayagana runtii kaalin aad iyo aad muhiim ah ka geystay tababarkiisa qalabeyntiisa iyo gacan goyntiisa intaasba nagala qayb qaata runtii EUda oo runtii ayagana aan leenahay aad iyo aad u mahadsantihiin ayagana runtii hawlo badan nagala qayb qaatay waqti dhow inkastoo ay muxuu ahaa ii sheegay ay bilaabeen hawlahaas laakiin haddana hawlahoodu meel aad u fiican ay noo marayaan waxay qalabaynteedii kumbuleedla ay dhameeyeen afar urur oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed afar kalena hadda ay bilaabi doonaan mashaariic badan oo kale oo ay kamid yihiin dhismaha qaybaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayagana way wadaan sidaas oo kale ayagana waxaan rabaa ayagana inuu mahad celiyo UK oo sidaas oo kale ayagana runtii
ayaguna ciidanka xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan qaybta lixdanaad ka geystay taageero isugu jirta tababar iyo qalab intaaba isugu jirta iyo sidaas oo kale hay'ado kale ayagana oo si toos iyo si dadbanba noogala qayb qaatay dib u dhiska ciidanka sidii UNSOM UNSOS UNMAS iyo guud ahaan hay'adaha kale saaxiibadeena waxaan rabaa ayagana inaan halkaan aan uga mahad celiyo saaxiibadeena AMISOM oo runtii aan dhihi karno qofka bini'aadmiga waxa uu bixiyo waxa ugu qaalisan dhiigga waxay noo bixiyeen dhiigooda waxaan ognahay wiilal iyo gabdho ayaa halkaan uga dhintay oo iyagoo doonaya nabadda iyo horumarka Soomaaliya raadinayana in qaran Soomaaliyeed mar kale uu cagihiisa ku istaago aad iyo aad ayaguna u mahadsan yihiin runtii wali waxaan hor yaalla saaxiibadeena inaan iska kaashano hawlo aad iyo aad weyn oo ay ugu horeyso la dagaalanka argagixisada waxaan ognahay AMISOM hadda inay u gudubtay isbuuc ka hor in la ansixiyay ADMIS oo ay transition noqotay una baahannahay runtii saaxiibadeena qaaliga si ay u xaqeejiyaan wixii ay halkaan u yimideen taariikhdana ay u gasho wixii ay halkaan ka qabteen oo aanay u gelin baalmadow waqtiga u haray in ay runtii xoogga nala saaraan dabargoynta nimanka arxanlaawayaasha ah ee dhiigga ummaddeena miiranaya waxaan rabaa runtii inaan ayagana halkaan aan uga jeediyo tacsi guud ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed saraakiil xigeen alifley iyo dabley intii ku geeriyootay inta ay la dagaalamayeen ururada argagixisada ah ee arxanlaawayaasha dhiig miiratada ah inta ay ka dulqaadayeen ummadooda iyo bulshadooda saaxiibadii nooga geeriyooda waxaan leenahay ilaahay ay idin naxariisto insha Allah taala waxaan xaqeejin doonaa hadafkii